ودونيسا inaad ogaato arrimaha la xiriira ammaanka dhaqaalaha iyo guud ahaan siyaasadda Soomaalida iyo caalamkaba haddii jawaabtu ha tahay la soco barnaamijka xogta dahsoon barnaamijkan oo lagu falanqeyn doono arrimaha dahsoon waxaan ku martiqaadi doonaa dad aqoon iyo khibrad u leh mawduuca markaasi laga doodayo nidaamka dhan oo rabno inaan systemka dawladda ku dhisno inuu yahay nidaam musuqmaasuq ah ma ahan doorashada kaliya oo baarlamaanka la dooranayo macna systemka dhan ayaa wuxuu ku socdaa musuqmaasuq barnaamijka waxa uu baxayaa habeen kasta oo Arbaca xilliga saacadda UK ay tahay 9 fiidnimo hamogaan barnaamijka xogta dahsoon kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogta dahsoon habeen kasta oo Arbaca 9 fiidnimo idin ka yimaada stuudiyaha telefishinka Soomaaliya Cable magaalada London ee dalka Britain barnaamijka waxaan caawa ku eegi doonaa isbeddelka lagu sameeyay laamaha ammaanka Soomaaliya iyo xilka qaadistiisa saraakiisha sare ee nabad sugidda iyo booliiska Soomaaliya maxay ka bedeli doontaa ama ka bedeli kartaa xaaladda ammaanka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho barnaamijka waxaa la qayb galaya Colonel Cabdullaahi Cabdulle oo hore u ahaa ka tirsan jiray saraakiisha hore ee nabad sugidda Soomaaliya iyo Maxamed Nuur Qalimow labada ayaa barnaamijka soo ku soo dhawaada barnaamijka labadiinaba waa tahay daawadayaal bishii laga ilaatay October waxa ka dhacay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho laba qarax oo galaaftay nolosha dad aad u fara badan mid ka mid ah qaraxyadaasi wuxuu ka dhacay isgoyska Soobe oo ku yaala bartamaha Muqdisho wuxuuna ahaa qaraxii ugu xooggan ugu qasaaraha badnaa taariikhda Soomaaliya oo kooxda shabaab ay geystaan qaraxaasi waxa ku dhintay dad gaaraya 358 qof sidoo kale dabayaaqadii October waxa qarax iyo weerar ka dhacay hotelka Nasablo 2 aan ka fogeyn aqalka madaxtooyada Soomaaliya weerarkaasi waxaa lagu dilay saraakiil iyo madax iyo sidoo kale dad shacab oo gaaraya ilaa 30 qofood arrintan waxay dhalisay in golaha wasiirada Soomaaliya maalinta Axadda ay yeeshaan kulan degdeg ah kaas oo kulan gaar ah oo arrimaha ammaanka laga hadlayay kulankan waxaa xilka laga qaaday taliyihii nabad sugidda iyo sidoo kale taliyihii ciidamada booliiska Soomaaliya arrintan waxaa lagu tilmaamay isla xisaabtan madaxweynaha Soomaaliya dhawaanta wuxuu ku baaqay dagaal ka dhana kooxda shabaab oo weerar ku haysta dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka midowga Afrika ee dowladda Soomaaliya kaabaya shabaab waxay sii kordhiyeen weerarada ay geysanayaan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulankiisa ujeedka u ahaa in laga doodo ama su'aalo laga weydiiyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa isku bedelay qaab markaas xildhibaanada kaga hadleen arrimaha ammaanka madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad ka jeedinayay kulanka ay yeesheen madasha ama hogaamiyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya waxa uu sheegay in shabaab laga adkaan kari waayay arrintan siyaabo kala duwan ayaa loo fasiray mahasalaad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay doodii maanta baarlamaanka ka dhex sheegay in madaxweynuhu ku gafay ciidamada Soomaaliya isla markaana uu sheegay in shabaab aan laga adkaan karin marka hore la daawada khudbadii uu mahasalaad ka jeediyay baarlamaanka balse aata marka hore khudbadda madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka horeyn doonta oo koobaysa wixii uu madaxweynuhu ka hadlay gaar ahaan markii uu ka khudbeynayay kulankii ay yeesheen maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dowladda Soomaaliya inay noo yimaadaan oo martiqaadkii aan siiyey ay runtii ka jawaabaan oo aan ka wada hadalno masiirka iyo xaaladda dalka uu ku jiro sidii aan uga gudbi lahayn khaasatan arrintii dhacday oo foosh xumayd musiibadii October 14keedii oo ay nooga dhinteen dad aad iyo aad u fara badan oo bulshada dhexdeeda qiimo ku lahaa iyo dooraad 28 October qoladii horarka ahaa runtii hotelka Nasablo 2 dadka shacabka ah ku laayay qaar ka mid ah mas'uuliyiin ahaayeen iyo shacab iyo ciidamada qalabka sida ilaahay waxaan uga baryaynaa kulli intii dhimatay Allah u naxariisto jannadiisa iyo naxariista Allah siiyo inta dhaawacana Allah u fududeeyo si degdeg ah ilaahay uga kiciyo xaqiiqda meesha taalo waxay tahay waan halkan isugu nimid in aan dib u milicsano aan fiirino waxa naga khaldamay kadibna aan ka wada hadalno sidii musiibadii lagu dhacday foosh xumayd oo dadkeena aad arkayseen dhiigoodii oo qulqulayay inaan ugu bedelno midnimo iyo wada shaqayn sidii aan ula dagaalami lahayn qolooyinkan horarka ah oo aanan u naxayn ummadda Soomaaliyeed oo aan dagaal ku haynin kaliya dawladda iyo shakhsiyaadka ee u soo banbaxay inay laayaan shacabka Soomaaliyeed inaan sidii aan uga hortagi lahayn aan ula dagaal lahayn qorshaheeda inaan galno wada hadalkaas runtii meel fiican ayuu runtii
noo maraya insha allah waana dhammaystireynaa maalmaha soo socda waa xaqiiqa inta laga hadlay dalka wuxuu ku jiraa xaalad adag xaaladda adagna wuxuu ku jiray muddo 10 sano ah intii qolooyinkan nabadiidka ah ee xagjirka ah ay duurka galeen ay noo diideen in dawladdu istaagto inay dawladdu shaqayso in ummadda Soomaaliyeed ay nabad helaan iyo nolol helaan xaqiiqadiina runtii ilaa hadda waa ka adkaan laanahay ma aha inay guuleysteen waa ka adkaan laanahay waana inaan keenno qorshihii aan uga adkaan lahayn 10 sano la soo dhaafay haddii aysan hayn AMISOM arrintu intaan waa ka duwanaan lahayd marka waa inaan u mahadcelinno AMISOM iyo dadaalkii ay ka galeen inay dawladda difaacaan in badanna waa dhinteen in badanna waa dhaawacmeen marka mar walba inaan muujinno runtii sacrifice-kii ay sameeyeen iyo naftooda inay u hureen inay dawladdan shaqayso ummadda shacabka Soomaaliyeedna ay horumar gaarto laakiin waxaan ognahay oo xaqiiqo ah AMISOM kaligeed kama guuleysan karto shabaab taas waa xaqiiqa 10 sano dagaal socda wax sahlan ma ah oo waliba aan ognahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu kaasi ahaa haddaba baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulankiisu u ahaa inuu su'aalo weydiiyo wasiirka maaliyadda ayaa kulankiisa wuxuu isku bedelay in laga doodo arrimaha amniga xildhibaan Maha Salaad oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa madasha baarlamaanka ka sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu sheeqiray in shabaab aan laga adkaan karin sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynaha ku gafay ciidamada Soomaaliya oo ku tilmaamay inuu sheegay in ciidamada Soomaaliya aysan u dagaalameyn caqiid ahaan ila daawada hadalkii Maha Salaad oo ka jeediyay baarlamaanka sida oo xeeroosaadka u qabo golaha shacabka ee qodobkiisa 26aad guddiga joogtada ayaa dejiya ajandaha golaha shacabka muddooyinkii hadda u dambeeyana guddiyadu markay shireen waxaa naga soo gaaray ajandayaal la dejiyay inay jireen loogamana doodaynin golaha shacabka in marka hadda un sharci la iska soo tuuro maanta la keenay ama berito la keeno ayadoo ajandayaal muhiim ay jiraan iyo dhacdooyin muhiim oo dalka ka dhacay waxaan isleeyahay arrintaas dhibkeeda ay leedahay bal horta in dib loogu laabto oo guddoonku iska waraysto tala ahaan ku soo jeedi lahaa midda labaad mudana guddoomiye maalin dhaweed xildhibaano 10 ayaa waxay keeneen in lagu daro ajandaha oo wax laga bedelo oo laga doodo arrinta amni xumada dalka ka jirta iyo dhacdooyinkii xanuunka badnaa 14 Oktoobar iyo 28 Oktoobar waxaa noo sheegtay labada guddi ee amniga iyo difaaca in loo xil saaray maalin dhaweedna kulleyba markay shireen sidaan ka warhayno ajandihii lama aadin ayadana mudana guddoomiye waxaan codsanaynaa haddii shaqadii goluhu inuu ka doodo loo ballansanaa ay suuragal noqon weyday guddigii loo xil saarana uu shaqay waayey in la iska waraysto inay aad iyo aad muhiim u tahay mudana guddoomiye oo dib loogu soo celiyo baarlamaanka waa ku talin lahaa qodobka saddexaad mudana guddoomiye dhacdooyin xanuun badan dalkan ka dhacay oo 14 iyo 28 Oktoobar ilaa hadda xog rasmi ah kama hayno tirashada dhimashada iyo dhaawaca iyo sidoo kale siday wax u dhaceen midna xogteeda ma hayno sidoo kale cabashooyin is soo tarayo naga soo gaaray ayaa jira dadkii waxyeeladu ka soo gaartay meeshaas gargaarkii loo fidiyay ama dawladda ku deeqdo ama banaanka laga soo diray ayadana in dhibaato ka jirto oo kala socosho xataa ay jirto meeshii hal sanduuq dadkaas inta loo sameeyo wax lagu aruurin lahaa laba sanduuq oo kala gedisan inay jiraan laba shaqo oo kala gedisan inay jiraan shaqooyinkii isdabamarin inay ka jirto ayaa la sheegayaa waan codsan lahayn marka iyada ruuxeeda warbixin aan u baahanay guddigii gurmadka ee la dhisay in golaha sharafta la hortiisa la keeno su'aalo laga weydiiyo lana ogaado sida ay wax u jiraan tala ahaan ayadana waan ku soo jeedi lahaa mudana guddoomiye qodobka ugu dambeeya oo afaraad mudana guddoomiye shalay khudbadii madaxweynaha waxaa ku jirtay laba eray oo isleeyahay runtii labaduba aad u xanuun badan yihiin mid waxaa ka mid ah ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee dalkooda u dhimanaya oo dadkooda u dhimanaya oo maalin kasto
dariiq kasta lagu dilayo oo cadowga ugaarsanayo iskuna dhigayo ummadda Soomaaliyeed sidii u badbaadi lahaayeen ee qarankan Soomaaliyeed in la yiraahdo caqiido kuma dagaalamaan waxaan aaminsanahay arrin gaf ku ah ciidamada qaranka ayama ciidamada qalabka sida arrintaas mudana gudoomiye waxaan aaminsanahay ciidamadana inaysan qabanin waxay ku dagaalamaan mabda ay aaminsan yihiin oo Soomaalinimo iyo mid diineed iyo mid mujtamacan xil inuu ka saaran yahay arrintaas marka waxaan aaminsanahay in looga baahan yahay madaxweynaha in su'aal laga weydiiyo sababta arrintaas ay ku timid sababtoo ah dhiirigelin ay cadowga u noqonaysaa ciidamadana sharafta leh ee maalinka soo taagan badbaadinta dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed iyo jabi ku riday tan labaad ee mudana gudoomiye ayadana madaxweynaha qodbadiisa ku jirta waxa kamid ah in madaxweynuhu uu yiri waan ka adkaawayna shabaab mudana gudoomiye shabaab madaxtooyada hareeraheeday joogi jireen xabadaha ay ku soo ridaan ayaa guryaha madaxtooyada ee fila Soomaaliya la deganaa ee gaari jiray dalkana inta laga xoreeyay oo la reexay ay deegaano kooban ka joogay waa dhici kartaa in isbedel uu yimid oo meel hore aysan u joogin hadda ay yimaadeen laakiin shabaab waa laga adkaaday waa laga adkaa kara in la yiraahdo marka laga adkaan karo aniga waxay ila tahay arrin meesha ku jirta ama dawladnimada Soomaaliya ay qaadi karto inaysan ahayn oo waliba madaxweynihii ugu sareeyay qaranka oo sidaas yiraahdo arrintaas marka waxay u baahan tahay iyadoo ruuxeeda in inta la iska wareysto waxyaabaha niyad jabka ku ridaya dawladnimada oo ciidamada niyad jabka ku ridaya oo ummadda Soomaaliyeed iyo diilada ay niyadda ku hayaan ee dawladnimada ay u qabaan ku ridaya ayadana inaan dadka mas'uuliyiinta aysan ka imaanin aad iyo aad muhiim u tahay talana laga siiyo qaladkan dhacana sidii loo sixi lahaa loo amaqaado waxa kale oo mudana gudoomiye jira oo ayadu ruuxeeda muhiim ah waxaad moodaa isbedel inuu ku jiro howlgallada iyo shaqooyinkii amniga socday ciidamo farumihii ay ku jireen ka soo baxay ayaa la sheegayaa oo magaalada dib ugu soo laabtay meelo cusub oo cadowga qabsaday inay jiraan ayaa la sheegayaa waxaasoo dhan arrimo is soo taraya waayo u baahan ka baarlamaan ahaan iyo ka xukuumad ahaan in inta la iskaashado wax laga qabto waxaan u baahanahay marka warbixin wixii dhacay dhacdooyinka hadda aan sheegayno 14 iyo 28 Oktoobar iyo xaaladaha amni xumo ee dalka ku soo siyaaday mas'uuliyiinta dawladda in meeshaan inta la keeno prime ministerka iyo xukuumaddiisa wax laga weydiiyo meel lagu ogaado oo wixii dib u jira la isla saxo sababtoo ah farkaliya fool ma dhaqdaa la yiri hadda hadii cadowgu asagoo sidaas ugu soo ruqaansanaya furmihii dagaalka ciidamadu ay joogeen ciidamada nidaamka sidaas loo niyad jabinayo in cadowgu oo halis gari kara amniga iyo istiqraarka gudaha waxaan codsanayaa kaasi waxa waa xildhibaanmaha salaad oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya isla kulankii baarlamaanka maanta waxaa mahad u jawaabay isla markaana sheegay in madaxweynuhu uusan wax dambiye gelin isla markaana qodbada madaxweynaha si qaldan loo turjumay xildhibaan goodax barre oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya aan daawana qodbada xildhibaanka mudane gudoomiye marka hore xildhibaankii hore ee halkan ka hadlay tilmaamay doodeena inay furan tahay iyo noocay tahay waa la qabaa waana fikirkaas waa la wadaagaa dooda waxaa fiican inay wax dhasho hadda waxay u muuqataa in xildhibaanada qaarkood weliba kuwa xukuumadda mucaaradka ku ah in loogu talagalay inay mataqaanaa ku nafisaan oo ay fadhi ku dirir ka dhigtaan ayaad moodaa taasna sharafta iyo qiimaha baarlamaanka ayay dili doontaa hadday saa ku sii socoto mudane gudoomiye waxaan rabaa baarlamaanka sharafta leh iyo ummadda Soomaaliyeed ee TV-ga ka fiirsan doonto arrintan in ay iska iloobaan wax kama jiraan ka soo qaadaan waxa xildhibaanada qaar ay meeshan ka sheegeen ma aha kuwana matalaan baarlamaanka Soomaaliyeed waxay sheegeen waa fikirkooda gaarka waa fikir aniga ay la tahay inuu gurcan yahay waa fikir ku salaysan xukuumadda in la wiiqo
cadowgana oo gacan sarreeyo waa fikir ku salaysan burcadnimadii shalay aan ahaa burcad ha ii soo noqoto burcadnimadii aan meesha ka wado waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed iyo baarlamaanka sharafta leh intaba raggii meeshaan ka hadlay xildhibaanada ahaa ee fikirka aragteen ku hadlay in loo qaato sidaas inay yihiin dad raadinayo sidbursi iyo xukun guracan inay wax ku maamulaan marnaba aysan ahayn in ay rabaan inay muxuu ah wax toosiyaan maxaa yeele hadday rabaan inay wax toosiyaan mudane guddoomiye waxaa halkan ka yeertay farantigaa laga soo baxay arrintaas arrin jirta ma aha ciidankeennana ciidan faranti ka soo baxa ma aha iyagoo maanta meesha ay joogaan aada uga liito ayay ku dhimanayeen mindoorkooduna ku dhimanaya in ciidanka la kiciyo dhambaan loo dilayaa soo kaca halkan imaada cadowga ka soo horkaca ee wax lagu raadiyo noocaas midowda guddoomiye wax baarlamaanku uu qabo ma aha waa wax shakhsiyaad kooban oo ummadda soomaaliyeed wajiyadooda yaqaanaan ay qabaan waxaa halkan ka yeertay in khudbada madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta qaranka la fasiro ee si guracan loo fasiro madaxweynuhuna waa ka weyn yahay waana ka qiimo badan yahay waana sharaf iyo qiimo qof leh mana aha qof ku dhawaaqa wax noocaas caqiide iyo waxaasna kama usa hadlin laakiin dadka fadhi ku-dirarka oo ilaa xalay iyo waxaa social media ka hadlay wararkooda in baarlamaanka noogu keeno ummadda soomaaliyeed loo baahiyo mudane guddoomiye sax ma aha ummadda soomaaliyeed iyo inta dhegaysanayso iyo baarlamaanka sharafta lane waxaan u sheegayaa dadkaa in fiiro gaara loo yeesho waxaan u baaqayaa weliba hay-adaha amniga xasaanadu ma aha waxaan rabaan iskaga hadlaya xasaanadu ma aha in cadowga soomaaliyeed gacan la siiyo lana sheegto in laga tirsan yahay baarlamaanka soomaaliyeed hay-adaha amniga waxaan ku baaqayaa inay shaqadooda qabsadaan xasaanada yaan qalad laga fahmi ninka wax uusan caddayn karin meeshan ka sheego xasaanad ma haysto xasaanadu ma aha warqad cad oo aragti ku qora ah in shacabka soomaaliyeed niyada laga dilo ciidankeenna loogu baaqo inay ka soo tagaan fariimada ee halka yimaadaan mudane guddoomiye meeshinka gacantaada ku jiro waxaa ku qoran ciidanka farantiga ka soo tegay xildhibaanadii saxiixay waxaan ka rabnaa in baaris lagu sameeyo iyaduna ay caddeeyaan meesha ay ciidanku uga soo ciidanka soomaaliyeedna waa ka sharaf weynyahay inuu waxaa sameeyo ciidanka soomaaliyeedna caqiiday leeyihiin maaha ciidan caqiido lahayn mudane guddoomiye waxaan codsanayaa guddiga anshaxa inay bilaabaan howshooda inay qabsadaan gudoomiyaha guddiga anshaxa waa fadhiya xubnihiina waa fadhiyaan hortiina waxaa laga sheegay in ciidan ay ka soo baxeen meel ciidankaa haddii la caddeyn waa inay soo baxaan waxaan rabnaa in hawshaasay tallaabo fiican la qaado weli way saxiixeen maaha keliya war waa saxiixeen in ciidanka soomaaliyeed uu ka soo baxay farantiga waa mahadsantaa guddoomiye xildhibaan goodax baraayo kaasi ahaa oo ka hadlayay baarlamaanka soomaaliya haddaba aan usoo laabano dulucda mawduuceena maanta oo ah maxaa ay keeni kartaa isbedela oo xagga ammaanka in xilka laga qaado taliyihii booliiska soomaaliya iyo agaasimihii hay-adda nabad sugidda soomaaliya iyadoo arrintaasi golaha wasiiradu uu soo jeediyey wasiirka amniga islamarkaana la sheegay inay qayb ka tahay isla xisaabtan iyo in dib loo eego duldulaalada ammaan ee ka jira dalka gaar ahaan magaalada muqdisho oo bishii oktoobar ay u ahayd bil madow ay ka dhaceen 2 weerar oo dad badan ay ku marteen oo soomaaliyeed kuwa badanna shacab ay ku dhaawacmeen barnaamijka waxaa kala qaybgalaya qalimow iyo sidoo kale dulle qalimow marka hore maxaa keeni kara in taliyaha booliiska iyo taliyaha mas'uuliyadda xilkii laga qaado maxay arrintaasi sal ku hayn kartaa بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha daawanaya Soomaaliyeed waxaan kala mahad celinayaa telefishinka Somali Cable caawi ugu cusubay iyo Maxamed Wariyaha caawi ugu saacidsamay inaan barnaamijkan kala qayb qaato runaantii xaaladda lagu asilay labadoodaba waa wax duruufaha jira ay keeneen oo ah qarax aan loo adkeysan karin xanuun badan dadka gaarsiiyay
dowladdana u keenay maaragtay jahwareer badan oo wax iyaga ka tanweyn shacabkuna aynan qaadi karin oo almost dad 400 oo qofood lagu qiyaasay iyo wax ka sii badan inay ku dhinteen qaarna wax ku noqdeen ayaa waxay keentay in isha dadku ay ku godaan hay-adaha ammaanka laga sugo waana booliiska iyo nabad sugidda marka waxay u arkeen in xogaa halkaas gaabis ka jiro sida ay dowladdu marka ay isku qancinayeen in nimanka shaqada laga qaado si ay isla arkeen marka taliyaha booliiska oo kale waayaha waa iska jirtay xan ah mataqaanaa inuu yahay nin gaabiya oo xagga maaragtay maalmaha xataa inta shaqadu socoto marka qaarkood la arko isagoo shaqada ka maqan ama la leeyahay wuurda oo dhowr jeer hore ayaa la isku dayban positionkaas laga qaado laakiin Sambalosh wuxuu ahaa wadooyinka nin shaqeynayay laakiin waa dhici kartaa haddana qaladaad badan waa inaga ogeyn in meesha ka soo baxeen oo sida looga qaado haddii ay wax dhacaan cidda la rabo inay arrintan ogaato ama baabuurka intaa la eg dadka baabi'iyey sirdoonka ay ahayd nisa nimankii hoteelka galay waxay wateen dareyska iyo kaararka aqoonsiga ee hay-adda sirdoonka booliisku nabadgelyo ayuu sugaa laakiin cidda la rabo in wax ka hortagaan oo aqoonsigooda la isticmaalay waa hay-addii ugu sarreysay ee sirdoonka marka ma dhihi karnaa waxay kaalin sirdoonka meesha ka maqneed ee ma ahayn kaalin biliis runtii kiiskan qarax baabuurka weyn waa kan dowladda tijaabada u ah wax qabadkeeda inta ay karto in waxaan karin runtii baabuurkani wuxuu ka soo galay dhanka afgooye sida wararka lagu sheegayo wuxuu soo maray checkpointyo badan haddii checkpointyadaasi dowladda dadka uga wakiilka waa ciidanka iyadu geysata nisaha aadana booliska ahaadeen ama militariga ahaadeen haddii dadkaasi si dhab ah dhaqaale ahaan iyo korjoog ahaanba ay madaxda sare uga warqabi lahaayeen sida ay uga warqabaan ilaalada madaxtooyada dadka ilaaliya aad baa looga warqabaa askariga ilaaliya madaxtooyadii ereyadeeda madaxda halkay degan yihiin wuu ka maaragtay badan yahay waxa uu helayo mushaar hadday noqoto daryeel hadday noqoto haddii marka dadkan ilaalinaya shacabka ee sida hadda u joogo kala kontroolada magaalada laga soo galo sida kuwa loo daryeelo kala iyagana ay helaan daryeel fiican aynan ku qasbi lahayn inay maaragtay wax qaataan ama ay howl fudeen sameeyaan waxaan qabaa baabuurkaan mid soo ku lahayn korodilla waxaad ka ahaan jirtay ciidamadii nabadgelyada Soomaaliya maxay sababi kartaa ama soo kordhin kartaa ama xagga ammaanka ka bedeli kartaa in taliyihii booliiska iyo agaasimaha nabadgelyada xilka laga qaado iyadoo la sheegayo inay tahay isla xisaabtan بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا أمد الصومالي ميل كستري جوجان وحن سلام يا صاحب ذي هالكا إلى فرديو يفرسمي قانا ذا أنت صبر كان كسوت كبعد محي كب بدالي كرتا اسبدل كاللو سمي تليها بوليس كي تليها لبس جدا وأعرن بالله هو وأعرن لوبا هني هو واحد مدة حتى هنا الدهدات مدة محل عي أفري توكي بشي فبروري واحد دنتين ومد صومالي وفر بدن أكتوبر دنتين وعكسي دبا سيتين وإذا هدنا سيدي لواتنكي هتلنا صاحب لوتو هدنا يكسي دنتين دتقارا ويران صدق قفوت taasoo dhan waxa waaye in la bedelo taliyaha booliiska iyo taliyaha nabad sugidda waxa waaye markii la isku leeyahay booliiska iyo nabad sugidda hay-adaha amniga ka tirsan yihiin waxa waaye guddiga amniga qaranka markii lagu yidhahdo waa 7 madaxweynaha guddoomiyaha ka yahay labadaa waxa waaye labada ugu sokeysay hawsha inay qabato loo idmaday waaye madaxweynaha ku jiro ra-iisul wasaaraha ku jiro wasiirka arrimaha guddiga amniga qaranka waa badan laakiin labadan waxa waaye mas-uuliyadda gaarka ayagaa iska lahay laakiin ayagu keliya shaksi ka yihiin hogaamanka ay xukumaan amba talisyada ay xukumaan yaa gaabiyey waxaa kuga cadaynayso muddo waxa waa wadanka Soomaaliya ama magaalada Muqdisho waxaad moodaa inay ka sii daraysaad moodaa ay ka sii darayso xagga amniga aad moodaa waxa lagu leeyahay nimankii ku dhinteen naasaablood gudahooda oo meedka labadii qofood jaabkooda waxa laga baxshaa lagu leeyahay leesan baal waxa laga baxshaa lagu leeyahay aqoonsiga nabadgelyada laga baxshaa lagu leeyahay waxa kale lagu sheegay saddexda qofood ka baxday ka carartay meesha operation ka qayb qaadatay la soo qabtay sida la sheegay hadda hay'adaha dawladda ay sheegayaan waa niman nabadgelyada ka tirsanaa lagu leeyahay marka meesha ka qoransantaa sartu ma ahan taliyaasha aqoon la'aan ha noqoto marka laga hadlayo dhankaasi laakiin haddana intii la shaqayn lahayd oo hay'adaha amniga gaar ahaan nabadgelyada ahayd bal nabadgelyada diib loo fiiri nabadgelyada waxa waaye waa dad kala duwan marka waaye in la bedelo waxa waaye howl bilowgeeda waxa leedahay nabadgelyada ayaa wax ku dhex jiro dad badan oo shacabka u shaqeeya nabadgelyada kaliya ma aha hay'adaha amniga oo dhan ay ku jiraan waad ogtahay rag badan adii xataa aqoon aad u leedahay aniga ma ogi markaan ku leeyahay nin kasta Soomaali ay sheegaya maanta dhagaa u furan yahay ama la soconaa situationka wadanka
in rag badan laga keenay shabaabka laga keenay shalay dadka la jiray maanta mas-uuliyiin sare dowladda ka yihiin hadday ahaa leed talisiyada ciidamada hadday ahaa leed hogaanada ahaa leed hadday ahaa leed madaxtooyada meel walba hadday ahaa leed ay joogaan taasi waa isweydiin uma baahna ciidamadan kala duwan gaar ahaan kuwii amniga qaban lahay ama booliiska ama nabad sugidda haba badnaada nabad sugidda kuwii amniga qaban lahay yaa waxay yihiin dad kala ujeedaa kala aragtiya kala waxismaa kala hogaan waa marka dadkaasi maxay yihiin waa dad ciidamo kala nooc ah ciidamo kala nooca markaad isku keentid saa isku geli sidoo kale waxaa laga yaabaa rag badan oo kamid a inay ku jiraan waa macquul waxaa ku jira saraakiishii dadka dili jiraa ku jira waxba laga weydiinay la iska cafiye mas-uuliyiin haddana ah oo aan hal lahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn kii ugu dambeeya hadda wuxuu ahay ninkii la keenay waa ku-xigeenkii shabaab uu ahay robo markii la keenay ninka haddana loo keenay rag badan u maanta dilaani waa ogsoonay carruurtooda maata yihiin dhibaataysan yihiin haddana waxaa lagu leeyahay waa la soo dhaweynayaa oo dowladda meelahaasaa looga soo dhiibayo waa la shaqo gelinaya maxaad shaqo gelinaysaa staafka uu qaadanayo miyaa marka waayo arrinta waxaa booliiska iyo nabad sugidda la bedelo waa wax loo baahan yahay qalimo ma aaminsan tahay in nabad sugiddu ay ku jiraan dad labada dhinac ka shaqeeyo oo arrintan fududeynaya maadaama la leeyahay kaararkii aqoonsiga hay-adda dhammeed ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo nabadgelyada iyo ammaanka loogu talagalay inay xogta keentay in kaararkeeda rag ay wataan marka ma leedahay ma dhihi karnaa sida dula sheegayo nabad sugidda ayaan dhexdeeda fiyoban oo laga buuxaa run ahaantii haddiiba ay dhacdayba in la isticmaalay idgii nabad sugidda waa jariimo aada u weyn inuu islayba ahayd saacadda uu ogaaday in qalabkiisi technolojiyadii ay iyagu isku afgaranayan kaararka idga xitaa loo soo dhacay waa meel aada gudaha ay galeen marka in la casilo ee shaqadaa laga qaado uma mudna ama hadduuna isaga iscasilinba in laga qaado uma waayo meel aan loogu talagelin inay gaaraan ayay gaareen mideeda kale ani waxaan aaminsana qofka marka uu ka yimaado dhankaasi horta ugu yaraan 5 years 5 sano inaanu wax howl dowladeed ama laga qaybgelin howlaha hadda si toosa loo geliyo qofka xagga ka yimid hal sano ma joogin maba ogid wuxuu yahay wuxuu noqon karaa double agent wuxuu noqon karaa qof lasoo diray marka waxaan aaminsanahay aniga in total aan la isticmaalin haddii la doonayo in la isticmaalana ugu yaraan horta 5 sano uunan wax dowladda hawsheedaa inuunan gelin qofkaas hadduu askari hoose yahay hadduu nin sare yahayba si aaminka usoo noqdo waayo qofkani information aad ka filaysaa inuu ku siiyo ama tactigooda u yaqaan laakiin waxaaba dhici kartaba inuu yahay qof la use garaynayo loo soo dirsaday marka 5 years inaynu dhexgelin labada nin waxaa la magacaabay bishii abriil waxay xafiiska joogaan muddo imika 6 bilooda qabla ayaa la magacaabay ma dhihi karnaa marka horey ayaa samrosh u noqday taliyaha nabad sugidda waa tii xilka laga qaaday saacid hore u noqday taliyaha booliiska dowladdu marka iyadoo og inay nimanka xilka hore looga qaaday haddana inay magacaawday haddana xilka laga qaado wax ay soo kordhin karta ma lahan sababtoo ama dhihi karnaa mas-uuliyaddan waxay ahayd inay qaadato marka hore dadkii magacaabay ra-iisul wasaaraha wasiirka amniga dadka soo jeedinta lagu magacaabay ma dhihi karnaa ayaga ayay ahayd inay qaataan mas-uuliyaddan waxaad moodaa markii ugu horeysay intaan la casilin ka hor labadan sarkaal ee taliya ka hor mas-uuliyadda waxaa iska lahay hay-adaha amniga guud ahaana iska lahay waxaa lahay madaxweynaha lahay ra-isul wasaaraha lahay maadaama ay ka hadli waayeen sababtoo ah waxaa dhinteen ugu yaraan 500 oo qofood markii lagu daro missinka peopleka lagu daro dadka missin haddaad maqasho waa wada dhinto waa marka lagu daro ugu yaraan waa 500 oo Soomaaliyeed oo maanta inta dhimato waxay isla meeshaas la joogo yay ahayd inay go-aanka ka qaataan ahayd mooy in laga aamuso ma ahayn in dowladdan ayadaa laga raba laakiin hadda markaad wasiirkii amniga uu u magacaabo raggaasi yiri hawshii qabsan waayeen waxaad moodaa asaga waxoogaa jaaris uu helayaa markii laga fiirsho dhanka kale sababta wuxuu kiiskii dhinac kala saaro waxa waaye wuxuu saar taliyaashii ciidankaana ayadoo la og yahay oo nimankan hore usoo mareen usoo fashilmeen la yaqaan mid kastaba yaa mar labaad ay magacaabeen qolada maanta jooga marka taasi macnaheeda ma noqonayaa marka iska wareejida la yiraahdaa la iska wareejinayo kiiskii taasi macnaheeda ma noqonayaa labadaas nin booliiska taliyihii booliiska nabad sugidda ayaan casilay oo ayaga xisaabta ka siinay ma jirto cid kale oo xilka oo dacwo loo qabsanaya cid kale raacaya ma jirto kiiska halkaas ku xirmay miyaa sheekada kiiska inuu xirmo looma baa kiiska horta sidiisa waxa waaye arrinta dhacday ee 500 qofood iyo 30 qofood oo gaar ah dhinteen oo la sugo maahan kor go'aan inay qaataan arrinta dhacday waxaa la rabay dadka dhibaatada sameeyay ee mas'uuliyad darrada ay ka muuqato oo shacabka Soomaaliya hortooda lagu dhameeyay ee la rabay inay ilaaliyaan waxay ahayd baarlamaanka ay ahayd baarlamaanka Soomaaliya ee shacabka wakiilka ah ee 500 qofood hortooda ku dhimatay waa 500 qofood
konton qofood maaha oo 5 qofood ma waa 500 oo qofood oo Soomaali ah ku dhimatay oo hantidooda ku baabaaday oo jiritaankooda ku baabaaday oo haddana la sheegay mar labaadkii markuu qaraxa dhagay in nabad sugid ka tirsan meesha sarta ka qorsanta waxay tahay oo urubka uu ka baaba'say waxay tahay baarlamaanka Soomaaliya waxa laga rabaa inuu dawladda la xisaabtamo hadduu qaldan yahay wasiirka amniga iyo ragga amniga haystay hadduu qaldan yahay taliyaasha ciidamada laakiin arrinta bilow ilaa dhammaan markaa fiirisid cidda xisaabtanka guud gadaal u fadhiday ee la rabo shacabka Soomaaliyeed inay saxaan wada fiican marsiiyaan waxay baarlamaanka Soomaaliya oo ilaa caawa la joogay qaarkood badiidayaan in laga hadlo dadkii Soomaaliyeed ee dhintay iyo keeskii dib loo furo badiidayaan marka arrinta lama dhigi karo amniga iyo waxaas lama dhigi karo amniga waa dhaaftay hadda gudoomiye baarlamaankii joogtaa ma santahay qalimo dowladda dowladda ay jirta in intaasoo musiibo ay dhacdo oo qaraxii ugu weynaa ee argagixiso marka laga tago qaraxii ka dhacay Twin Towers ka Mareykanka oo Soomaaliya ka dhaco qaraxii labaad ugu weynaa dunida marka laga tago Twin Towers oo intaasoo qof ay ku dhintaan muddo 2 bilood xafiiska joogaan ay marayaan in taliyaasha booliiska iyo militariga iyo kulli xilka ay ka tagaan ee taliyada sugidda maxaa dowladda laga filan karaa dowladda la dhihi karaa ammaankan waddanka lagu amri karo madaxweynihii sheegayo in shabaab laga adkaan waayo run ahaantii horta arrinta waa dhex fadhinaa wada dowladdii waa jirtaa isla berri ma dhihi karo dowladda hana laga bedelo waa process ay leedahay howl laakiin waxaa muhiimaddu ay tahay waxbaa nagu dhacay musiibo weynaa dhacday dad badan baa leeday maxaa casharoon ka baran karnaa sideen isu sixi karnaa sidee ayna nagu soo noqon marka talooyinka aan isleeyahay waxbay ka tari karaan waxaa ka mid ah jileeca ka muuqda meelaha kontaroolada ee laga soo gala xamar iyo ciidanka jooga in horta isha lagu qabto oo ah in askartaasi waqtiyada ay shaqada ku jiraan ay on duty-ga yihiin aynan shaqada ka tegin labo inaynan dayicin qaabka ama nidaamka sharciga ah ee baabuurta loo baaro oo aynan fududaysan iyaga laftigoodana askartaas ay helaan daryeel sida lagu baaray qalban ka dhaxgalo waxaan wataa kaarkii rasmiga ahaa hubkii iyo dareyskii iyo aqoonsigii rasmiga lagu yaqaanay ciidanka nabad sugidda Soomaaliya wataa sidee celinaysaa marka adigu waxaan ka hadlayaa midkan looriga ee soo galay ma wadanin nisaa ma wadan qof caadi ah watay loorigu ahaa ugu rarnaa kan ummadda ilaahay waa kaas marka wuxuu ku fakaday waxay tahay oo ku soo baxsaday dayacaad maxaana keeni kara waxaa keeni kara askarta joogta checkpoint-gaas ama kuwa uu soo dhaafay kan ugu dambeeyo siinka oo leeyahay uu soo dhaafay haddii askartaasi ay yihiin dad si dhaba wax u baaro sida sharcigu yahay baabuur walba oo xamuul wada in ilaa fitaxad meesha ugu hooseysa la ogaado ee baabuurkaas la furfuro aynan sahashanin oo sida la sheegayo oo hebel uu soo daa iyo aniga aqaani EVC iyo waxyaabo noocaas ilaa askariga laftiisa haduuna daryeel haysan shaqadiisu iibina waxaa kamid ah shaqadiisa inuu wixii sahlo si yani asna loo wax uu helo laakiin haddii loo daryeelo sida kuwa madaxtooyada ilaaliya iyo madaxda ilaalisa ee madaxtooyada aag walbo laga soo galo askarta taagana ilaalinaysa marna kaa qaadan maayaan laaluush marna kaa qaadan ma kulli ka dhaxgalayaan yaa ahayd inuu dagaalkaas qaato madaxweynaha Soomaaliya markii asaga taliyaha ciidanka markii uu xafladii khudbadii ka jeeday baarlamaanka markuu musharaxa ahaa waxa uu sheegay in uu ciidanka daryeeli doono shilan waxa uu sheegay in ciidanka isdaryeelaysan wuxuuna amaanay ciidanka AMISOM oo hadda mandatkooda ku eegayso 31 bisha May ee sanadka soo socda ayuu amaanay markii yaa tahay inay ciidanka daryeelaan yaa tahay qofka ciidanka daryeelaya laga rabo daryeelkiisa qofka soo xilay waa ciidanka daryeelaya yaa ciidanka daryeelaya ciidanka waxaa la dowladda mas'uuliyadeeda iyada leh marka dastuuriyan marka ciidanka ayaa dayacday ammaanka dayacisna ayada qaatay Soomaaliya dowladda run ahaantii dowladdu waxay ka mas'uul tahay qaranka Soomaaliyeed oo dhan haddii military u yahay iyo haddii dadka qaydka yihiinba ilaalintoodana ayagay madax ka saaranta waana dastuuri laakiin waxaan leeyahay si shacabkeeni especially magaalada Muqdisho dadka ku nool dhibaatada way ku badatay wax looga qabto waa in daryeel fiican iyo il joogto ah lagu hayaa nimanka kontaroolada jooga especially kuwa Muqdisho u dhow meelaha kala jidcadayaashu way xiran yihiin oo corner walba uu xiran yahay laakiin meelaha laga soo galaya askartaasi inaan la dayicin ee loo daryeelo sida kuwa madaxtooyada iyo madaxda meesha ay degan yihiin ilaaliya isha lagu haayo mushaaradooda la ilaaliyo iyagana inaan dayicin mas'uuliyadda loo dhiibay ma santa qalmo Abdullaah taliyaha nabad sugidda inta aan xilka laga qaadin ka hor waxa uu sheegay dhibaatooyinka caalamka ay ku hayaan Soomaaliya oo kamid ah in UN-ka hay'adda UN-ka amaanka u qaabilsan UNDC la yiraahdo ay xogta hayso aysan dowladda la wadaageen nabad sugidda Soomaaliya la wadaageen booliiska la wadaageen inaan
qalabka waxbaaridda iyo aan laga saacidayn qalabka laga saacidayn ciidanka Soomaaliya ee nabadgelyada marka ma dhihi karnaa culayskiisa xilli qaadis halkaas ayuu ka yimid isla markaana taliya booliiskana lagu daray si mas'uuliyad loo saaro oo ninkan maadaama uu sheegay inaan Soomaaliya caalamka wax la doonayn ammaanka waxba xog la siinayo inku oo shaqaalahooda kaliya u sheeganayaan intiima u doonaan leeyihiin habixin waxa dhici doona iyo safaradaha xamar fadhiya marka ma dhihi karnaa xogtaas ayuu eeday taliyaha nabadgelyadu lama dhihi karo nidaam xumida iyo ciidanka oo aada u liito iyo horumar la-aanta iyo dhibaatada shabaabka soo kordhayo waxay ku tusinaysaa habcadsanaanta dowladnimada Soomaaliya ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa hogaanka guud ee wadanka inuu qaab fiican ku socdo ku tusinaysaa 8 bilood ama sanad ka yar yaa maanta ta magaalada Muqdisho wadadii yareedo Maka Mukarrama waxoogaa jidka la marmari jiray yaa waxa way caawa seefe laga hadli maayo xaggaas iyo nabad sugidda habar qadiija markii la dhaafay sanad laga hadli maayo xagga ay warshadii baastay laga hadli maayo waxaan ka hadlaynaa wadada Maka Mukarrama eerida isku weerka aheedan ka hadlaynaa waxaan ilaalin weyn taas waa hogaanka wax kala ma ahayn haddii madaxda dowladda ay tahay madax aragti dheer wax garan karta fahmi karto dadkana ka raadinayso kuwooda wax galka la tashanaysa hadii ahaaleed tilmaam iyo talaal la siila waad arkaysaa madaxweynuhu kow markii ummadda dhimato 500 qofood markii wuxuu calaamadeeyay in dagaal degdeg la galo wasiirka gaashaandhigga ma jiro taliya ciidanka haddii la magacaabo ciidan markii dagaal la gelina wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad u baahan yahay wuxuu u baahan yahay maamulada isteedida dhinacyada ka jira ku caawinayaan dhaqaale intee la aga haysata qoryaha ay wataan shabaabkii ka waxa loo baahan yahay logistics fara badan la tilmaam waxa degaa oo yar madaxweynuhu yiri afgooyaan degayna wala afgooy miyuu deegi kara talabaad ka soo tag waad maqlaysaa hadda baarlamaanka Soomaaliya ee shacabka Soomaaliyeed wakiilka ahaa ee dadkii baaba'een ku dhinteen ilaa caawa wuxuu ka hadli weysan yahay adiga ay weydiinayso waxaad leedahay taliyaasha ciidanka mas-uuliyadda maleeya mise ka koraa laga leeyahay waa baarlamaanka Soomaaliya laga rabaa inay ka hadlaan arrintaas kala saaraan xaqi jaran ay saaraan marka dhibaatada meesha ka qorosanta sarto waxaa intaa kasii dhowr raalaha madaxweynuhu maanta markuu maamul goboleed la hadlay kelmadii waxay ahayd kelmado cajaa'ib leh oo ciidanka disappoint ka dhigay wasalaan doona kelmadaas wasalaan doona magaalada Muqdisho ayaan goor dhaweeyto la xiriiray waxaa jooga wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Cadde waxaan markii hore weydiiyay bal xaaladda guud ee ugu dambeysay ammaanka Muqdisho xilligan habeenimada sidoo ku sugan xarunta telefishinka Somali Cable ee Muqdisho magaalada Muqdisho ayaan imikana la xiriirnay wariyahayaga Xasan Cadde ayaa ku sugan xasan marka hore waxa warbixin naga siisaa xaaladda guud ee ammaan ee xilligan sida tahay bal magaalada Muqdisho محمد محمود دور aad baad u maasan tahay magaalada Muqdisho ammaankeedu hadda waa u wanaagsan yahay laakiin waxa la isweydiinayaa dhacdooyinkii 14 Oktoobar iyo 28 Oktoobar ka kala dhacay isgoyska Soobe iyo waliba kii ka dhacay hotel Nasahablo 2 kaasi oo dadku ay leeyihiin sidee muddo 2 wiig gudahooda ay qarax weyn inta dhacay oo in 350 qofood inta ku dhinteen mid kalena u dhacay laakiin waxa soconaysa qaban qaabo ciidamada ammaanku ay ka wadaan magaalada Muqdisho isla markaana ay doonayaan inay ku sugaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho maxaa iska bedelay hanaankii ciidamadu wax u baari jireen qaraxyadan dhacay muddo 2 wiig gudahooda maxaa isbedelay hadda qaab noocay wax loo baaraa oo ammaanka loo sugaa ammaanka magaalada Muqdisho maalintii marka aad maraysid waxaad arkaysaa ciidamo checkpointyo ama meelo kala duwan jooga gaar ahaan isgoyska Maka al-Mukarrama ilaa wadada aada dhinaca airportka ilaa iyo wadada afgooye aada waxaad ku arkaysaa iyo wadooyinka kale ee gobolka Banaadir ciidamo markaasi taagan oo baabuurta baaraya dadka markaasi qoryaha ka baaraya laakiin dhibaatada ugu badan inta badan shacabku ka cawdaan waxa weeyaan iyadoo mararka qaarkood isgoosyadu ay xirmaan baabuurtu ay dhibaato badan kala kulmaan sida maanta dhacdo kale isgooyska lambar 4 waxa uu xirnaa muddo saacad camal ah meel ay dadku iyo gaadiidku aadaan ama inay jirin checkpointiga lambar 4 marka aad fiiriso ama runabout-ka waxa loo yaqaano waa halbowlaha magaalada Muqdisho airport-ka hadii la aadayo dekada hadii la aadayo
haddii la aadayo dhinaca maka almukarama haddii dhinaca bakaara meel walba marka muddada baabuurtu ay ciidamadu xanibeen oo ay baaritaanka wadeen runtii waxaa jirtay xoogaa caqabado badana inay dadku kala kulmeen marka ciidamadu aad bay u feejignaanta ciidamadu aad u sareysaa laakiin dhibku waxa uu yahay sidee shacabkii markaasi dhibaatadu haysatay quutriyoomkooda raadinayay sidee markaasi loo macnaha aan dhibaatada u gaari karin xasan baarlamaanka soomaaliya maanta dood adag ayuu yeeshay runtii waxaa laga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin khudbaddii madaxweynaha soomaaliya oo ay ku jirtay hadallo ay ka mid yihiin in shabaab laga adkaan kari waayey oo madaxweynuhu soomaaliya ka sheegay shirkii maamul goboleedyada iyo dowladda soomaaliya baarlamaanku arrintaas sidee maanta horta uga doodeen baarlamaanku mar kasta horta isagu xukuumadda inta badan way ka soo horjeedaan laakiin maalmahan dambe waxaa jirtay cabasho ka imaanaysay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo guddoonka ka codsanayay in ajendayaasha laga hadlayo la bedelo islamarkaana laga dhigo xaaladda ammaanka xaaladda siyaasadda waddanka in la abbaaro hase ahaatee xildhibaano badan ayaa iyaguna taa diidan oo u arka xildhibaano mucaarad ku ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay doonayaan inay ka faa'iidaystaan marka maanta ayaa dareemaysaa kala qaybsanaanta ka dhex taagnayd qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka oo waad arkaysid qaar horay dowladdii xasan sheekh muxaafid u ahaan jiray oo difaaci jiray inay maanta dhinacii mucaaradka u wareegeen qaarkii ka soo horjeedi jirana haatan sida markaan tusaale u soo qaato xildhibaan mahad salaad oo kale dowladdii xasan sheekh waxa uu ahaan jiray nin aada uga ololeeya laakiin maanta farmaajo iyo xukuumadda xasan cali khayre aad buu uga soo horjeedaa xildhibaano badan oo noocaasa way jiraan hase ahaatee goodax bare oo isagu horay ninka ugu mucaaradka ugu waaweyn ka tirsanaa maanta runtii hadallo adag buu ku hadlay oo uu leeyahay ma wanaagsana in macnaha sadbursi dartiis xukuumaddii wax looga sheego marka kala qaybsanaantu way jirtaa xukuumaddii iyo baarlamaanka xoogaa inay waxyaro isku khilaafsiin waa ay jiraan marka mar kastoo dowladu timaadana arrimahani way soo baxaan shirka maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda soomaaliya xamar uga socday xaggee xalkiisu ku marayaa shirkaasi horta waa shirka ugu weyn ee muhiimadda la siinayo waxaa kulmaya oo weli wada hadaladii wada xubno guddiga farsamada ah oo ka kala socda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa kulanka ugu badan uu dhex maraya weli madaxweyneyaashii maamul goboleedka iyaga looma gudbin islamarkaana ajendayaashoo dhan in ay aqbalaan iyo inay ka soo horjeestaan weli looma gudbin laakiin caqabadda ugu weyn ee ilaa iyo maanta ilaa caawa la sheegayo waxa ay tahay doorka uu kulankan ku leeyahay maamulka gobolka banaadir oo runtii horay wax badan looga dooday waayo maamulka gobolka banaadir waxaa la yidhi 3 milyan oo ruux oo ku nool magaalada muqdisho ayaa macnaha uu u doodaya oo codkoodii ku hadlaya hase ahaatee qaar ka mid a dowlad goboleedyada xubnihii guddiga farsamada ee ka socday waxa ay sheegeen ilaa maqaamka magaalada muqdisho la saxo ama markaasi doorasho ay ka dhacdo marna halkan door kuma yeelan kara ayay yidhaahdeen marka waxaa kaloo ay xubnaha guddiga farsamada qaarkood oo aan la xiriira ay ii sheegeen in in macnaha dowladda federaalka soomaaliya iyo gobolka banaadir maamulkiisa la isxijinayo oo la leeyahay waxaa u doodi karta oo gogasha u fadhisa dowladda federaalka soomaaliya marka arrinta ugu badan ee adag ee maanta shalay iyo laisku mari ra'yahay ama laga wada hadlayo waa gobolka banaadir iyo roolka ama doorka uu ku yeelan karo shirkan iminka soconaya xasan ugu dambeynta dhanka ammaanka haddaan ku laabano waxaa jirta in xilka laga qaaday taliyayaashii nabad sugidda iyo ciidamada booliiska ee soomaaliya
maxaa soconaya yaa la hadal haya xilkaasi goormaa haddaa xog hayso goormaa la magacaabaya is leedahay maxaase ay tahay xanta hoose iyo wararka hoose magaalada ka jira sida muuqata xubno kala duwan oo dowladda Soomaaliya oo aan la xiriirnay oo waliba aan qaarkood wax ka weydiinay xilliga la magacaabayo maadaama uu bannaan yahay booskii taliyaha nabad sugidda ama agaasimaha nabad sugidda qaranka iyo taliyihii ciidanka booliska Soomaaliya waxa ay sheegeen in haatan golaha wasiirada iyo madaxda sare ee dalku ay ku mashquulsan yihiin qaabkii ay u magacaabi lahaayeen shakhsi markaas ay isleeyihiin waxbuu ka bedeli karaa aysan baloolshe iyo generaal saacid labadooda xilka qaadistooda iyaga qudhooduna kama aanay hadlin qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo ku doodaya waxaa jirtay maxaa xilka qaadis soo kordhinaysa oo xilkii haddii laga qaaday qof kale loo magacaabo haddii aan xaaladda ciidanka wax laga bedelaynin haddii aan waad la socotaay oo taliyihii ciidamada nabad sugidda Cabdullaahi Sanbalolshe 2 maalmood ka hor waxa uu eedeyn u jeediyey qaramada midoobay oo uu sheegay in aysan waxba la wadaagin sirta ay helaan mid kale qalabkii wax lagu baari lahaa oo lagu ogaan lahaana in aan la siinin marka xildhibaanada qaarkood waxay ku doodayaan waa in la helaa ciidamo ay dowladda Soomaaliya dhaqaale siinayso oo ayaga ka amar qaadanaya halka ciidamada qaarkood ama nabad sugidda ha ahaadaan ama alfa group ha ahaadaan meelo kale lacagta laga siiyo marka waxay ku doodayaan ilaa la helo ciidamo aan dowladdu kooban oo xadaysan oo ammaanka lagu og yahay oo dhaqaalaha dowladdu iyadu siinayso oo ciidamadiina mushaar ku filan la siiyo arrimahan lagama bixi doono marka waynu sugaynaa ilaa barito labada mas'uul wariyayga magaalada Muqdisho Xasan Cadda iyo kaasi ah oo ii waramayso ku sugan magaalada Muqdisho aanu soo laabano martida iyo qeybaha kale barnaamijka waxaan soo garanay qeybaha ugu dambeeyay barnaamijka arrintan ammaanka madaxweynuhu waxa uu qodobka jeediyay shirkii maamul goboleedyada dowladda shalay dhowr madaxweynuhu ka hadlay hasaati waxa aad loo hadlayaa arrinta ah in madaxweynuhu sheegay in shabaab isku dayay la dagaalamay laga adkaan kari waayo madaxweynuhu wuxuu sheegay runtii waan ka adkaan weynaa ayuu yiri arrintaasi maxay macnaheedu qalimo run ahaantii madaxweynaha haddii dhabtaan sheegno siyaasad ahaan ma fiicnayn inuu yiraahdo sidaas xogaa niyad jab ay ku keenaysaa ma aha inaan ugu darnaanayno laakiin madaxweynaha qaranka inuu yiraahdo waa ka adkaan weyna inuu arrintaa agmaraba xataa ma ahayn waa militariga la tugooda disappointed ku noqonaya macnaha inay ka niyad jabaan kelmadaha noocaas oo kala waxay ahayd uu yiraahdo yani markaan lawaad ka adkaan weynay waa run ahaantii markaad fiiriso Muqdisho joogi jireen maantana meelo aan la arki karin joogaan waa marka hore waxa conventional war gali jireen oo ah magaalada dhexdeeda iyagana ay koox yihiin dawladuna ay ka hortagayso laakiin maanta waa dadaan loo jeedin marka waxay ku tusaysaa in xogaa wax badan ay wiiqmeen kuwa wiiqayna ma aha dad iska caadi waa military goon marka guulo ay isleeyihiin waad gaarteen haddaad tiraahdo waad ka kaan weyn xogaa moraalkooda waxa uu si raacay inaysan guule taas macnaheedu inaysan guuleysan waa laga guuleysan wala maysan guuleysan halkeenaan ka sii wadaynaa inuu yiraahdo ka wanaagsaneen meesha waan ku masantahay maxaad ka dhihi lahayd arrintan ah ciidan ahaan military ahaan maxay noqon kartaa nuxur inta laga sameyn kartaa ama dhaawac inta leeg in madaxweynuhu yiraahdo waa ka adkaan kari weynaa shabaab nasiib darro shacabka Soomaaliyeed soo fool saarto waa siyaasad xumo shacabka Soomaaliyeed soo fool saartay waa arrimo dhibaato ah disaster ah dowladnimada Soomaaliya ay keenayso sababtoo ah in ciidamadii Soomaaliya maanta la yiraahdo maxay ahayd al-shabaab kama adkaa karno maal shabaab ayagoo madaxtooyada garaacayeen oo daaqada xabadda ku ridaya la iska celin jiray in la isdhiibana maaha in la iska celshaan loo baahan yahay aniga waxay la tahay taasi waxa waaye waa nasiib darro dhan walba sadka qaar u fasirnayaan inaysan ahayn madaxweynuhu waxa uu sheegay taas macnaheedu inaysan ahayn in aan lagu guuleysan laakiin loo baahan yahay in la midoobo oo midnimo lagu wajaho maamul goboleedyada haddii waxaa sidoo kale arrintan ka hadlay oo xitaa qiray madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegay in ay xukumaan hawada oo Baydhabo iyo Muqdisho aan baawar loo mari karin wadana marka muuqata in madaxweynuhu dhiirigelinayo
maamul goboleedyada inay la yimaadaan ma dhihi karnaa qorshe midaysan iyo soomaalinimo iyo midnimo loo wajaho in shabaab looga dagaalamo. absolutely lama dhihi karo ciidanka Soomaaliya iyo shabaabku waa naga awood badan yahay mana iska celi karno waxna ma qaban karno waxaan soo dhihin hadalku saxiis ma ahayn wax ka weynay taasi macnaheedu ma aha waxay inay guuleysteen madaxweyne sheegaba arrin oo idaacada ka yiraahdo oo banaanka u sheego oo shacabka dhagooda maqlaan kama guuleysan karna inuu mar laba yiraahdo ma ahan taasi waxa waaye nasiib darradii Soomaaliya haysatay noqonaysa ciidanka dhibaatada haysatay noqonaysa isbedelada dhacay dhibaatada haysatay noqonaysa baarlamaanka aamusan inuu sidaas yahay noqonaysa 4 sano waxay noqon doontaa 4 sano Soomaaliya waxaan daawanayaan aan siinaa Janiska telefoonada. Hello hello السلام عليكم ما قاعد ماشي كلا سؤال لسيت وعليكم السلام waxaan ka soo hadlayaa London China ku soo dhaw barnaamijka hello oo ku maqlaa ku soo dhaw barnaamijka waxaan ku weydiiyay had kalaam fiican baad kala laakiin waxaan ku weydiiyay adiga dhan mucaarad baad tihiin waxaan ka hadlaynaa sidee isbedel inta laga keeni kartaa inta liyaasha ciidamada nabad sugidda iyo booliiska xilka laga qaado maxay ammaan ku soo kordhin kartaa والله أنا waxay la tahay waxay ku soo bedelaysaa wax weyn hadii ay ciidamada dadka shacabka xamad meel ku jira hadii caawiyaan laakiin waxaan ku weydiiyay marka leedahay adinka iyo kulli saddexdeena afkina talaad baa ku hadlaysan mucaarad baad waqtiga kaas madaxweynaha wuxuu noo sheegay marka idinkan uma baahin dad caadi waxa timid dawladda ka soo horjeeda aad baa maasan tahay fikirkaaga oo ku maasan tahay aad baa maasan tahay qalimow madaxweynuhu waxaa jirta in madaxweynuhu shirka hadlayo runtii marka la hadlana maamul goboleedyadu dhibaato badan ay ku hayaan dowladda oo haddiisan jirin qorshe midaysan iyo ciidan midaysan isku dhifan dowladdu guul ma gaari karto ma dagaalami karto marka nimanka maamul goboleedyada shanta maamul goboleed inkasta dadka meel ku xirtay mas-uuliyadda ma leeyihiin dhibaatada ammaan darada ka jirta soo qaybtada ma lahan run ahaantii nimanka maamul goboleedyada horta waa dhibaato jirta oo Soomaaliya oo dhan haysta waliba uma fiirsadaan waqtiyada ay siyaasadda xasarada ay kicinayaan haddoo kale oo dhibaato dhacday oo mushkilad jirto ay waxay dawladdu ku mashquulinayaan kheyraadkiisaan kugula qaybsan lahayn waxaad soo heshaan u heli lahayn waxyaabo aan loo baahnayn oo hadda waqtigan necessary aan ahayn oo emergency aan ahayn laba qodob oo la rabay in laga wada hadlo ahayd nabadgelyada iyo wixii la qaban lahaa already waa lagu heshiiyey wax hadda la isku mari laayaa shirka u dheeraad waxay tahay kheyraadkiisaan kula qaybsanaa maxaadna siinaysaa telefoonada maamulgoboleedyada dhihi niman wax tara oo hello السلام عليكم. وعليكم السلام والله المقعد مشك سؤال ليش محمد محمد دور oo salaame magacaygu waa mahad ajuuke waxaan ka soo waa Norway abo mahad ku soo dhaw barnaamijka maxaa isla soo kordhin kartaa xilka qaadista taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliiska Soomaaliya waxa ay soo kordhi karto aan aaminsanahay haba yaraatee ma jirto taliyaal badan oo adag oo la isdhahayay waxbay qaban karaan ayaa wadanka soo maray waxaa kamid ahay ninkii Tuurere la dhihi jiray oo dadaal badan sameeyay Sambalool show inuu loo maleynay nin adeeg badan oo Muqdisho gacan kulul oo ku qabana aan u maleynaynay yaa haddana xilkii laga qaaday asiga dadaal badan uu sameeyay maxaa yeelay ciidamadan xasilinta xataa asiga ka amar qaadan jireen wanaag badan oo sameeyay laakiin xilkiis in lagu degdego ma aanan qabin maxaa yeelay dadaal uu wada qofka ma ogtahay haddii uu dadaal wado xilkiis in lagu degdego wax fiican ma ahayn sidoo kale haatan taliyaha soo socda yow ahaan doonaa waxaa hataa dhici karta niman raggan dawladda kasoo horjeedo dad ka mid ahaan jira xataa taliya in laga dhigaa dhici karto dhibaato meeshaasi nooga timaado yaa aaminaa marka dhowro waxa waaye aaminaadi dhan shacabka haddaan naha waa naga tagtay maxaa yeelay qarxii ugu dambeeyey Muqdisho ka dhacay Naasa Hablood waad aragtay 5 wiil baa weerarto intaasoo dhibaataa geysatay 30 qofood baa ku dhimatay haddana laba kamida wayba isqarxiyeen saddexdii soo fakatay guri bay galeen baa la yiri gurigii markay galeen ninkii gurigii macnaha dhahay dharka iska dhiga qoryaha iska dhiga marka ka bacdina dawladda masjid u diray haddana guriga laga soo qabtay asigii baa haddana la xiray marka shacabkii waxaa imaanay xoogaa bahdilaad iyo niyad jab baa imaanay meeshii laga rabay inay abaal ugu gudaan dhowrow aad baa maasanta mahad ajuuke waxaan soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijkan
khudbadda madaxweynaha markaan si u fiirino nuxur badan ay taabanaysay amisom la-aanta wadankani waa ogtahay Soomaaliya dhibaatada ka jirta in qoryaha la isku haystay qabiil la isku haystay madaxweynuhu wuxuu sheegay amisom howl fiican qabatin una baahan yahay wuxuu sheegay in sidoo kale ciidanka Soomaaliya marka Soomaaliya lagu dhisi karo midnimo qaran in la helo maamul goboleedyada ciidamada keenan ciidanka isku dhafo midnimo qaran la helo warka madaxweynuhu dawmaya xilligan warka madaxweynaha waa dow because amisom waxa ay muhiim inoogu tahay waxay tahay horta waxay haystaa hubka conventionalka waaweyn ilan Soomaaliya cunaqabatayna saaran intaan way u dagaalamaa in laga qaado laakiin weli uma suurtagelin waa wax 20,000 ilaa 30,000 u dhaxeeya ciidanka Soomaaliya lagama weyn laakiin laguma qalabayn karo heerka ay amisom ku qalabaysan tahay waayo waxa saaran cunaqabatayn xagga militariga ee hubka ah oo ilaa heerkaasi dawladdu mana soo iibsan karto lamana siin karo saxiibna siin karo labo amisom aanti weligeed noo joogi mayso replacement waa inaan helnaa ciidankeena oo bedela laakiin abaal waa nagu leeyihiin muddo badan way nala joogeen dhibaato badan oo soo socotayna way hakiyeen laakiin waxaan u baahanahay kuwa bedeli lahaana lugtaa xiran ona qabatayna aad baa maasan tahay sadaskan maxaa ku diri lahayd waxaan leeyahay in la isdhiibo shabaab la isugu dhiibo dawab maaha waa shacabka Soomaaliyeed ummad ilaah naga dhiganayo inaan wada istaagno maamul goboleedyada eed ma leh laakiin waxaa laga rabaa dawladda inay u istaagto kalsooni geliso talada wax ka siisa loo baahan yahay laakiin haddii go'aan kale gaarto maamul gobolkaasi ka taagan aad baa maasan tahay daawad yaal barnaamijka xogdaasuna caawa ku soo qaadanay arrimaha ugu dambeeya ammaanka gaar ahaan xilka qaadista taliyaasha ciidamada sida nabadsuguda iyo booliiska inta ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka waxaa kala qayb qaatay xasan caddo ku sugan Muqdisho sidoo kale qalimo iyo Karaal Abdulla halkan joogay maxamed yare iyo sidoo kale cabdisamadna barnaamijka saaristiisa iyo farsamadiisa gacan ka geysteen dhamaanteen isku duuban sida iyo nabadgelyo iyo guud ahaan siyaasadda Soomaalida iyo caalamkaba haddii jawaabtu haa tahay la soco barnaamijka xogta dahsoon barnaamijkan oo lagu falanqeyn doono arrimaha dahsoon waxaan ku martiqaadi doonaa dad aqoon iyo khibrad u leh mawduuca markaasi laga doodayo nidaamka dhan oon rabno inaan systemka dawladda ku dhisno inuu yahay nidaam musuqmaasuq ah ma ahan doorashada kaliya oo baarlamaanka la dooranayo macna systemka dhan ayaa wuxuu ku socdaa musuqmaasuq